marwooyin iyo mudanayaal tusan oo habboon ku soo dhowaada qaybtii labaad ee qisadii brofesor yaxya ajuuma iyo doctor raysa ameeliya. waa bogo ka mid a xaashiyihii buugga xasuus qorka ee ameeliya oo waa hilinkii habboonaa ee diinta islaamka ay ku hiigsatay iyo wadaaggii jacayle dhex maray iyada iyo yaxya ajuuma. waa tarjumaaddii cabdishakuur cali nuur iyo soo jeedintii khadar maxamed xaashi. haddaan cajiladda dib u soo celinno qaybtii koowaad ee sheekadu waxaan ku soo ogaanay in ajuuma iyo ameeliya ay isku barteen Bank of England. ameeliya oo Southampton ku dhalatay waxay fikrad xun ka aaminsanayd Afrika iyo dadkeedaba. waxay sheegtay inuu ku tallaalan yahay nacayb ay u qaaday dadka ajnabiga ah ee UK ku nool. maruu ajuuma gurigeeda boorso ka luntay ugu geeyey waxay sheegtay inuu ahaa qofkii madoobaa ee ugu horreeyay ee albaabkeeda soo garaaca. ajuuma oo ay isku goob ka shaqaynayeen waxay ku tilmaamtay nin qunyar socod ah oo xushmad badan, waxayse markii dambe u qaaday dareen jacayl. qaybtii labaad ee qisaduna ha inoo bilaabato. xidhiirkayagu wuxuu ahaa mid sii socda, waxaanuuna isnaqaanay muddo dheer. intaa ka badan wakhti kuma lumin karin, waxaan kolba sarbeeb wax ku dareensiiyo. waxay noqotay markii dambe inaan si badheera ugu sheego damcayga. kolkaan u sheegay wuxuu igu yidhi arrintaasi waa mid nolosheenna iyo mustaqbalka labadeennaba khatar ku ah, sidaa darteed waxaan soo jeedin lahaa inaynaan ku degdegin. wuxuu niyadda iigu dhisay aqoon ahaan dadnimo qofeed iyo quruxba inaan ahay qof xul ah oo qof nasiib liya heli karo. wuxuu iga mahad celiyey inaan qiimaynta qadarin u sarraysa ee qof la siiyo aan siiyey. wuxuuse dhib weyn ku tilmaamay khatarta ka dhalan karta arrintaasi inay tahay mid galaafan karta cawaaqibka nolosha iyo hannaanka aan u soo halgannay marka qiimayn lagu sameeyo xaaladaha markaa jiray. waxaan u sheegay umuurta inaan ku dhiiraday, isaguna uu si dhaba uga fekero. wuxuu yidhi waan ka soo fekeri inaan wakhti siinaana way qumanaan lahayd. waxaan ku idhi bay tiri degdeg ma jiro. intaa kadib waxaan dareemay inuu dibufaagasho galay oo iga yaro fogaaday. wuxuuse ahaa mid tixgelin iyo xushmad culus mar walba ii haya. wuxuu ahaa nin dantiisa guud ku far adag oo qorshe wadaninimo uu dalkiisa la damacsan yahay, wax kastaba uu kala weyn yahay. arrinta jacaylka wuxuu u arkay mid qalalaase iyo laablakac ku keeni karta qorshihiisa mustaqbalka dheer. saas oo ay tahay kamaan hedhin ajuuma, welina waxaannu isla nahay macallimiin. dharaar walba waxaan arkayaa ajuuma oo agtayda ka agdhow. wuxuu noqday nin aqoon sare leh oo aad jaamacadda looga qadariyo. mar dambe waxaan ogaaday inuu muslim yahay, diinta weliba ku adag. wuxuu ahaa wadaad qaadiriya ama suufiya, sidaa daraaddeed ma ahayn nin xidhiidh gaar ah la yeesha haweenka guurla'aan. islaamnimadiisa uu ku adag yahay waxay ka hor istaagtay cabbitaanka khamrada iyo waxyaabo kale, taasoo mas-uuliyaddiisa kaamil yeeshay una sabab ahayd in wixii uu qabtaba oo dhanba uu ku guulaystay. halgankiisa kama madhnayn inuu dalkiisa muslimkaa ka xoreeyo gumaystaha marna caddaanka marna ka diinta duwan, taasoo marka islaamnimada ah la joogo camal wanaagsan ah qofku inuu dalkiisa iyo diintiisaba difaaco. wuxuu dalkiisa la doonayay madax bannaani dowladeed iyo mid aqooneed. arrimahaas ayaana dareenkii ajuuma aan u qaaday ku noqday derbi adag oo aanan dhaafi karin. waxaan ka bartay wax badan oo diinta islaamka ka mid ah. laftaydu waxaan dareemay dhowrsanaan, waayo hadduu ahaan lahaa mid kilaabada iyo goobaha tumashada taga, waxaan hubaa inaan wada tamashlayn lahayn oo aan cawaysyada meelaha isu raaci lahayn. qof ahaan isaga ka hor diinta islaamka wax fikrada kama haysan, waayo waxaa qoyanaa raadkii kacaankii lagula dagaalamay kiniisadaha, sidaa daraaddeed diimahaba col baan la ahaa. waxaan jeclaystay aragti diimeed inaan ka gunto, laakiin ajuuma aad uguma xeel dheerayn amuuraha diinta ee tawxiidka ku taxalluuqa. wuxuu ku wacnaa dhinaca cibaadaysiga iyo wardiga oo aan u malaynayo waalidkii inuu ka dhaxlay. wuxuu ahaa nin xeerarka islaamka u dejisan, aan doonayn inuu si yar uga tallaabsado. wuxuu u dabranaa awaamiirta diintiisa. waa marka aan dareemay inaan soo galay xayndaab diimeed. sidaa awgeed berigii dambe marka aan la kulmayo madaxa waan soo awdan jiray, arrintaasna aad ayuu ugu riyaaqay una soo dhoweeyey.
wuxuu ka tirsanaa urur u dhaqdhaqaaqa xorriyadda dalka yar ee Gambiya oo Ingiriisku gumaysan jiray. waxaa farxad ahayd 18 February 1965 in dalkaasi xorriyadiisa qaatay kana mid noqday waddamada barwaaqa sooranka. laakiin weli wuxuu si dadban u hoos imaanayay boqoradda UK ilaa laga soo gaaray 1975 markaasoo uu noqday Jamhuuriyadda Gambiya. gobonimada Gambiya kadib Yaxya Juma waxa uu go'aansaday inuu England ka huleelo oo dalkiisa ku laabto. Amelia waxay tiri aniga dadkaygii waa iga yaaban yihiin, waxay ii arkaan qof lumiyey han iyo firfircoonidii uu lahaa, kana dhex baxay bulshadii la ayniga ahayd, taasoo ay garan waayeen waxay ku macneeyaan. Juma intuusan bixin ayaan habeen wada sheekaysanay, waxaanan ku qanciyey inaannu Gambiya wada degno isla markaana aan diinta Islaamka qaadan doono. wuxuu igu yidhi nolosha aad ku nooshahay kuna barbaartay Gambiya ma taal, sidaa daraaddeed inaan ku dhibo ma rabo ee adiga oo UK jooga muslim noqo. sidaan mar dambe ogaaday inaad qof muslimisa waa arrin qiimo weyn u leh dadka muslimka ah marka laga eego dhinaca camalfalka, sidoo kalena naxariis way kuu jiidi kartaa maadaama sida diintu qabto qofka aad cadaab kala baxsanayso. aakhirkii waxaanu ku heshiinay inuu baxo oo uu qiimayn ku sameeyo nolosha halkaa ka jirta, waraaqahana aanu kala helno. si joogto ah ayaanu u xidhiiri jirnay. Juma markii dalkiisa uu tegay waxaa loo magacaabay madaxa bangiga dhexe ee dalkaas. 8 bilood markii uu sii maqan yahay waxaan qaatay go'aan la yaab leh. qalbigaygu wuxuu igu qancinayaa dhulkii aan ku dhashay inaan ka dhaqaaqo oo aan tago qaaradda Afrika ee aan ka biqi jiray. laabtaydu waxay ii jiidaysaa dhanka Juma uu iga jiro. waxaad mooddaa inay qaadayso heesta midhaheeda ay ka mid ahaayeen. ma jiibsado caawadii dharaartii ma joogi karo, dhinacaad iga jirtaabaa qalbigu ii jiidaya. saddex bilood ayay igu qaadatay bay tiri inaan qorsheeyo safar dheer oo saamayn ku yeelan doona habku socodka noloshayda dambe. waxaa la soo gaadhay 28 Abriil 1967. waa maalintii England aan ka dhoofay. safar dheer kadib waxaan ka degay Gambiya oo ahayd halkii aan u socday. sidii aan filayay waxaa si wanaagsan oo la yaqaano ii soo dhoweeyey Juma. wuxuu igu dejiyey hotel, wuxuuna iga codsaday inaan dirso nolosha halkan. anigu waan soo diyaargaroobay oo isaga ayaan doonayey, waxaanan ku khasbanaa duruufaha adag ee soo waajaha inaan la qabsado. daraasad dheer kadib waxaan ku qancay qaadashada diinta Islaamka. ashhadu an laa ilaaha illa Allah waxaan qiray Allah xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaahay mooye, nebi maxamedna uu yahay kii laynoo soo diray. ashhadu anna muhammadan rasuulullah Gambiya oo suufiyadu aad ugu badan tahay, waxay dadku in badan oo ka mid ah diinta u haystaan sidii hab dhaqan ah oo abka soo gaara. maskaxdayda waxaa ka guuxaya weydiimo badan oo warcelin waafiya u baahan, laakiin ilaa hadda wax jawaabo saxan su'aalahayga iga siiya ma hayo. sidan waan ku wareeray, waayo anigu waxaan doonayay aqoon mug leh diintan igu cusub in layga siiyo. waxaan rabaa cibaadadu inay dhadhan ii yeelato.